بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan jeclaan mahadnaqo dhammaan shacbiga reer Somaliland sidii nabadgelyada ahayd ay codeeyeen. waxaan mahadnaqayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee Somaliland ee sugay ammaanka. waxaan mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha isbedel doonka ee taageeray xisbiga wadani. anigoo tixraacaya hadalkii maanta ay jeediyeen wakiilada komishanka doorashooyinka qaranka heer qaran mudane xuseen axmed caydiid iyo mudane cismaan afgaab nuur oo sheegay faahfaahin badan oo ku saabsan arrimaha komishanka. fariintaydu waxa weeyaan fariin sixitaan oo ay lagama maarmaan noqotay inaan mariyo saxaafadda. anigu shakhsiyan anigoo ah musharax madaxweyne iyo guddoomiyaha xisbiga wadani waxaan 2 jeer u tegay komishanka qaranka. qoraalna waan ugu gudbinay cabashooyin ku saabsanaa sixitaan oo ah in naloo eego, nalala hubiyo, naloo tiriyo sanaaduuq gaar ahaan gobolka Maroodijeex 40%. annagoo dareenay in mugdi badani uu ku jiro degmooyinka Gabiley iyo Hargeysa labadaba. komishanku waxay noo sheegeen inay jawaab nagu soo celin doonaan. jawaab ilaa hadda ay nagu soo celiyeen maan arag. sidaa daraaddeed waxaanu amarnay iminka laga bilaabo dhammaan wakiilada xisbiga wadani ee la shaqaynayay komishanka ama task forceka heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba inay joojiyaan shaqadii ay wadeen ilaa inta komishanku uu ka jawaabayo waxna ka qabanayo cabashooyinkaas. shacbigana taageersan annagoon ka warwarsanayn annagoon ka warwarsanayn natiijada waxaanu ka codsanaynaa inay isdejiyaan annagoo ka warsugaynaa komishanku inay arrintaas si dhaqsaa uga jawaabaan. waxaanu ugu baaqaynaa taageerayaashayadu inay naga warsugaan haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan shacbiga Somalilandna ugu baaqayaa inaanay fariinta iyadu ahayn fariin naxdineed ama fariin xaalad ka abuureysa, laakiin ay tahay si loo saxo arrintaas si aynu u helno natiijo cid waliba ku wanaagsan tahay iyadoo Somaliland ku dhisan tahay aanay ku dhisanayn ismuquunin. waxaana u soo jeedinayaa komishanka qaranka inuu ku soo noqdo xaydaabka wadatashiga iyo isqancinta haddii ilaahay ka dhigo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maadaama aan u gudbinay komishanka cabasho qoraala iyo mid afaba, waxaanu taageerayaashada ugu baaqaynaa inay isdejiyaan ammaankana aynu wada ilaalino. waxaanu u sheegayaa mar labaad inaanu aqbalayno doorasho xor oo xalaal ah, hase yeeshee aanaan aqbali doonin cod xaaraan ah inay cidina ku badiso haddii ilaahay ka dhigo.